الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصحافة كان هلك كوقبانيو أفرلاتك بيشتشون وحسب ما أنتو التاريخ ظهر أفرلاتك تشون لبكون يسدي طبعا وحاشير شرائط كوقبتي مقالة دا قال كعيو حسابيه هو قبل كمودو وسارد المالية دا مصر بخضلة آدم موسى كدي مركز شغال اللغة تشوتشي حلقو شلعان تضيوي طبعا كي تشون لبكون يسدي طبعا أهرمها أو كهذا اللي وحى كم ده قدر ككواد وسارد المالية دا إسألك أهري إنه كعصد العقد طبعا كون أو دولار أو كو استعماله خرج أهان أرنتري وحي ميل كدع كتاهي وسيرك وسارد المالية الدولة بوتلان سببت أو سيركو إسقى معمولة وسارد المالية بوتلان ودل وحنا ليه هاي أديك يمشهر وقون ديسن marka ma jirto sabab ku kalifaysa inuu xisaabiye wax gaar ah weydiisto waxa meel ka dhac ku tahay wasiirka iyo wasaaradda maaliyadda oo dhan qodobka labaad oo ka hadlay xisaabiyuhu canshuurta qadaraasyada kadib markii xisaabiyaasha gobolada ee wasaaradda maaliyadda si sax ah u qaadi waayeen ayaa wasaaradda maaliyadda go'aamisay in lagu qaado goobaha qandaraasku ka dhaco mana ahan waxa gobolka mudug ku gaar ah inta badan qandaraasadu waxay ka dhacaan caasimada dawladda Puntland ee Garowe qodobka saddexaad oo ka hadlay xisaabiyihii hore ee gobolka mudug ee wasaaradda maaliyaddu wuxuu aqoon u lahayn nidaamka cashuuraha iyo furdooyinka sida uu sheegay oo yiri madaxweynahan kala hadlay cashuurahan kala hadlay madaxweynaha waxa u dhaxeeya jaranjarooyin badan oo dhaxaysa mana marka qodobka hadalkaas hadal waafaqsan nidaamka iyo sharciga dalka u degsan qodobka afraad lacagta lagu dhisay controlka laanta dusmada waxa lagu la heshiiyay lacag dhan 89,000 oo dollar ka bacdina waxa laga bixiyay qasnada dhexe ee dawladda Puntland 86,000 oo dollar gobolka mudugna waxa lagu qoondeeyay 3,000 oo dollar ka bacdi ninkii qandaraas lahaa wuxuu sheegay 3,000 oo lagu qoondeeyay gobolka mudug in aanu bixin xisaabiyaha gobolka mudug halka uu been abuurka yiri customka 190 iyo lacag dheer baa lagu la heshiiyay qandaraaslayaasha meesha uu yiri halka waxay cadeynaysaa meeshii mas'uulka ka ahaa in aan mas'uuliyadii aanu wala soconba qodobka shanaad lacagta xisaab xirka lagu siiyay guddiga dhaqaalaha oo uu yiri lacag baa guddiga dhaqaalaha xisaab xir loo siiyaa taas waxay meel ka dhac ku tahay golayaasha dawladda iyo wasaaradda maaliyadda bay meel ka dhac ku tahay waana arrin dambi ah oo xisaabiyuhu ku kacay intaas waxa dheer muddadii uu joogay oo dhammayd 12 bilood xisaabiyuhu ku guul daraystay inuu bixiyo mushaharooyinka ciidamada gobolka mudug waxaana laga bixin jiray gobolada kale ee Puntland qasnada dawladdu waa isku mid laakiin wixii ku qoondeysnaa gobolka mudug ayuu soo xireen way bixin waay qodobka lixaad lacagta ka soo xirata furdada boosaaso oo ka hadlay xisaabiyi hore gobolka mudug ee wasaaradda maaliyaddu kama warbixin kara isagu balse wuxuusan ogeyn meelna ku sheegi karin wixii ka soo xirooda gobolka mudug ee wasaaradda maaliyadda sidoo kale xisaabiyaha waxba kama oga kharashka dawladda Puntland iyo sida uu ku baxo mas'uulna ugama aha shacabka iyo dawladda Puntland haddaba waxaan shacabka Puntland iyo dawladda Puntland la socodsiinaya in xisaabiyihii hore ee gobolka mudug uu ku guul daraystay shaqadii loo igmaday sida ku cad dikreetada lambarkeedu qoran yahay taasoo shaqada lagaga joojiyay ayna ku cad yihiin xulgudasho la'aan xisaabiyaha hore waxaana ku lifaaqan tahay war saxaafadeedkan
sidoo kale wuxuu xisaabiyuhu dahabshiil gaalkacyo kala baxay 89,000 oo dollar oo ahayd 99,000 oo dollar oo ahayd mushaharkii ciidamada daraawiishta gobolka Mudug lacagtaas waxaa looga diray Garowe xisaabiyaha gobolka Mudug waxaa laga doonayaa wixii uu ku hadlay inuu cadeyntooda keeno waxa kale oo laga rabaa aan la socodsiinayna hay'adaha sharciga inay ku maqan tahay lacagtaas 89,000 ah 99,000 ah oo ah mushaharka ciidanka daraawiishta aad iyo aad baad u mahadsantiin intaa waxa uu heliya warqadda tan waa dikreetadii shaqada lagaga joojiyay 17 bisha Juun bay soo baxday dikreetadana waxa weeye dikreeta labaad oo lagu magacaabay guddi soo hubiya shaqada ka socota gobolka Mudug ee wasaaradda maaliyadda iyo waxyaalaha aanu tuhunsannahay oo keenay habacsanaanta keenay iyo inaan kharash kii lagu qoondeeyay aanu gobolka aanu bixin keenay ka bacdina guddi baa loo diray 4 xubnooda oo isugu jira ayna ka mid yihiin xisaabiyihii dowladda Puntland iyo agaasimihii dakhliga guud ee dowladda Puntland iyo 2 xubnood oo xubin ka mid ah xisaabaadka iyo xubin ah internal auditka taasaa marka keentay inuu galgalashada keeno haddana baaritaankii waa la wadaa warqadda tani waxa weeye warqaddii customka laanta dusmada heshiiska aan kula galay oo isagu ku tilmaamay inay ahayd 190 iyo lacag dheer laakiin waxay ahayd 89,000 xaqiiqdina waxaan oran karaa cashuurtii dawladda ayaa lagu dhisay customkaas warqadda tani waxa weeye warqaddii loo diray oo shaqada lagaga joojiyay markay gaartay weeye warqadda tanna waxa weeye waa warqaddii dahabshiil Garowe lacagta 99,000 ah oo mushaharka daraawiishta gobolka Mudug ah oo loogu diray haddana isaga ku maqan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wasiir hadda ayaa sheegteen inaad ninkaasi shaqada dowladda ka joojisay laakiin waa markuu isagu sheegay inuu saasay markaasi wuxuu jiray shaqada ka joojiseen oo keliya mise waa shaqada waa ka eedeen oo dabcan uga horeeyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida dikreetada ku cad anna aan sheegay waxa weeye anna waxaan ku sameynay shaqo joojin sideedana qofku xaq buu u leeyahay in baaritaan lagu sameeyo inta wax ku cadaanayana waa eedaysane laakiin markii wax ku cadaadaan buu dambiilo noqonayaa saaligeed annagoo eegayna xeerka shaqaalaha annagoo waxyaalo badan eegayna waxaan ku sameynay shaqo joojin laakiin shaqada annagu kama aanan qaadin kadibna baaritaan baan u diray in arrintii la soo xaqiijiyo ka bacdi isaga media wuxuu ka sheegay inuu iscasilay isagoo ka gelgelinaya arrimihii baaritaanka iyo waxyaalaha lagu waday marka anagu shaqo joojin baan ku sameynay hadda isagaaba ilaahay waa iscasilay wuxuuna isku boor qarinayaa waxyaalaha aan ku tuhunsannahay cadaymahoodiina hadda la wado lana soo dhammaystiri doono wuxuu rabaa inuu ka hordhaco isaga ka hordhacay warqad waxaa jirta uu soo bandhigay oo saxaafaddu u soo bandhigay gobolka Mudug uu leeyahay waa xisaab dahabshiil akoonkaaga dahabshiil waraaqa laga soo daabacay oo laba uu ku leeyahay uu ku tilmaamayo lacago fara badan warqadaasi maxaa kale aad baad u mahadsan tahay waa su'aal wanaagsan horta warqadaas warqadii waa kuwa kan waxaana aaminsanahay ummadda intay aqoon lehna waa u jeedaa inay yihiin warqada la foojar gareeyay anigu qardhaa ku qoran qardha akoon kuma leh waxaadna weydiin kartaan dahabshiil qardho iyo dahabshiil boosaaso iyo dahabshiil garowe laakiin akoon dahabshiil waa ku leeyahay lambarka la soo daabacayna maaha akoonkaygii aan lahaa anigu qardhana akoon kuma leh taas inta haddaan ka gudbo waxaan oran karaa dahabshiil waa xarun ganacsi iyaga laftooda la rabaa inay caddeeyaan
sumcad dilisna waxay ku tahay dadka macaamilka la leh iyagaa la rabaa inay caddeeyaan aniguna xaasha lilaahi nin wax qarsanay maahay xor baan ahay kalsoonina waan isku qabaa waxaan oran karaa akoon barayfad anigu waa leeyahay weligana waa aha laakiin hanti dowladeedna weliga kumana shuban doono mana aha akoonkani akoon aniga aan leeyahay amaasanta hadda waxaan noo sheegtay in ninkaas lacag uu la baxay oo ay haayeen ciidamada daraawiishtu oo aad ku daba jirteen oo baaritaan ku wadeen hadduuna ninkaasi maanta hadlin ma ogaanin anagu inaad ninkaasi intuu lacag la baxay haddana aad baaraysa markii uu hadlay inaad tiraadaan isagana intaasaa ku maqan maxay noqonaysa wasiir aad baad u mahadsan tahay waxa weeye sideedaba horta arrin dawlo weeye sir dawlo weeye sir dawlo hadday mar tahayna baaritaan baa la wadaa qofka waana la daba joogaa waxaana caddaynaysa guddi baan u diray guddi baana daba joogay marka in anagu hadalla waxa kalifay isagu markuu media ka hadlay uu sheegay warqadaha been abuurka ah awalna waa la daba joogay waa lagu raad joogay caddaynteena waa la waday waa maasanta